الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya gaar ahaan warbaahinta qaranka oo habeen maalin u taagan sidoo kale ciidamada qaranka oo nabadda u taagan in alla intii dalta guud iyo daljirnimo ku jirto oo dhan waa salaamaya intaa kadib waxaa loo baahan yahay si laaba in isula hadalno ummadda Soomaaliyeed waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray marka ragga madaxda ah wax abaabulaya waxa aan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo discipliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac mooryaannimo ku socda waxaa kaloo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacida iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaco sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada Soomaaliyeed lagu baabi'iyey gabaad loo noqday haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan birri wax ka maqlayn haddana aan magacooda ku socan inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka aan ognahay dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummaddana wax yeeli doonaan ragga hadda dhahaya dowladdan ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arrintaas aadaan uga digaynaa waana ku celcelinaynaa dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey waxaa loo nabadooniinayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo intii kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaata dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan discibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad la isaga ilaalin u baahan nahay ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho anoo la hadlayo nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud yeysan gacmooda uga siibanin si fudud yeysan uga siibanin dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kala dhib ugu filnaa marka laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan dadka inay qaxiyaan inay dhahaan laga guuro meesha in ay dadkii guryahooda ku askeysay inay joogaan inay dhibaateeyaan inay bililiqaystaan inay dilaan arrintaasi jid xun bay nagu wadaa marka aad in alla intii dalta guud iyo daljirnimo ku jirto oo dhan waa salaamayaa intaa kadib waxaa loo baahan yahay si laaba in isula hadalno ummadda Soomaaliyeed waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray marka ragga madaxda ah wax abaabulaya waxa aan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo discipliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac mooryaannimo ku socda waxaa kaloo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacida iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaco sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada Soomaaliyeed lagu baabi'iyey gabaad loo noqday haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan birri wax ka maqlayn haddana aan magacooda ku socan inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan
waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka aan ognaha dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummaddan wax yeeli doonaan ragga hadda dhahaya dowladdan ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arrintaas aadaan uga digaynaa waana ku celcelinaynaa dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey waxaa loo nabadooninaayey oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo intii kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaata dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan discibliin lahayn oon sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad la isaga ilaalin u baahan nahay ummadda soomaaliyeedna mar kale reer muqdisho anoo la hadlaya nabaddii ay usoo rafaadeen oo usoo dhibtoodeen si fudud yaysan gacmooda uga siibanin si fudud yaysan uga siibanin dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed waxaa dhib ugu filnaa argixisadaas kala dhib ugu filnaa marka laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan dadka inay qaxiyaan inay dhahaan laga guuro meesha in ay dadkii guryahooda ku adkaysa inay joogaan inay dhibaateeyaan inay bililiqaystaan inay dilaan arrintaasi jid xun bay nagu wadaa marka aad iyo aad aan uga digaynaa aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu